kadib sanado uu dagaal badan u galay dartiisana uu u xayiray in dalka ay doorasho ka dhacdo. Madaxweyne Farmaajo ayaa u muuqda in uu hadda luminayo gobolka Gedo ee ay beeshiisu degto. Siyaasiyiinta miisaanka leh ee gobolka Gedo ayaa mid uga siibanaya xerada madaxweyne Farmaajo, iyadoo badankood ay u galayaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe amaba ay iskoodu istaagayaan. 2 toddobaad ka hor Farmaajo waxa uu waayay wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo kadib markii uu ka soo waday Beled Xaawo oo uu keenay Muqdisho dib uga furtay 3 bilood kadib. Janan ayaa looga baxay ballamo badan oo dhaqaale uu ugu weyn yahay. Sidoo kale waxaa axadii shalay shir jaraa'id magaalada Garbahaare ku qabtay gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimow iyo qaar kamid ah gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka oo sheegay in Gedo ay hoos tagto Jubbaland, Axmed Madoobena uu madaxweyne u yahay. Siyaasiyiinta Gedo ee ka soo horjeestay Farmaajo waxa ay ku hadleen luqad isku mid ah, iyaga oo sababta ay u raacsan yihiin Axmed Madoobe ku sheegay in dagaalka dowladda federaalka iyo Jubbaland uu wax badan ku waayay gobolkooda. Xubnahan ayaa sheegay in muddadii sanadka iyo barka ahayd ee xiisadda ay ka jirtay Gedo uu gobolku waayay mashaariic badan oo uu ka heli lahaa ama loo soo marin lahaa maamulka Jubbaland. Waxay sababta ku sheegeen in gobolka uu gacan u galay maamul sharci darro ah oo ay soo magacooday Villa Soomaaliya sida ay hadalka iyaga u dhigeen. Waxay intaasi ku sii dareen in muddadaasi Villa Soomaaliya iyo dowladda federaalka aysan wax dhaqaalaha siin guud ahaanba gobolka, taasi oo muujinaysa in Farmaajo markii horeba dana shakhsi ah u watay ee aanu gobolka u danaynayn. Waxaa hadda muuqata in si tartiib ay awoodda maamulka Gedo u gacan galayso Axmed Madoobe, inkastoo ciidamada taageersan Farmaajo ay weli haystaan qaybo kamid ah gobolka. Dhanka kale, Axmed Madoobe ayaa la filayaa inuu dhowaan safar taariikhi ah ku tago gobolka oo muddo badan ka maqnaa gacanta maamulkiisa. Safarka Axmed Madoobe oo ku aadan ka hor doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa xaqiijiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimow oo hadda kamid ah siyaasiyiinta taageersan madaxweynaha Jubbaland. Macalimow ma uusan sheegin waqtiga rasmiga ah ee uu Axmed Madoobe safar ku tagi doono gobolka Gedo, balse waxa uu xaqiijiyay inuu socdo qorshaha safarkiisa.